munaasabadan lagu caleemasaarayay nabadoonka guud ee beesha reer siyaad xuseen nabadoon jaamac nabadoon faarax nabadoon nuure nabadoon xubey ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka caabudwaaq iyo bangeele mas-uuliyiin xilal horey uga soo qabtay galmudug odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyaro iyo martisharaf kale waxaana munaasabadan oo ka dhacday degmada caabudwaaq dhammaan xubnihii ka hadlay ay sheegeen in nabadoon jaamac uu yahay shakhsi karti u leh hogaaminta bulshada gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada caleemasaarka xaflad dhaqan waa xaflad nabadoon jaamac nabadoon faarax nabadoon nuure lagu caana shubayo anigoo ku hadlaya afka dowladda maamul goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha waan soo dhaweynaynaa nabadoonka waana qaadanay horeyna waanu qaadanay qaybihii kala dunaa ee bulshada ee ka hadlay munaasabada lagu caleemasaaraya nabadoon jaamac nabadoon faarax ayaa ugu baaqay nabadoonka inuu si siman ugu shaqeeyo bulshada nabadoonnimadan 95 sana ku dhinta aabbahay nuure xubey wuxuu ku qaatay 30 isagoo jira 65 sano yuu hayay faarax buu kala dardamaan faarax wuxuu hayay konton intiioo kalu hayay 120 bay isku tagtay cimrigaas ilaahay baa mahad leh faarax markuu dhintana wuxuu kala dardaarmay jaamac faarax nuur waa keenay waanad nala qaadateen adinkana waa idiin ducaynaynaa annaguna arrinkaas sidaasaanu u keennay awala jaamac waxaan u keennay duqbu awalahaa in aad nala aqoonsantaan oo nala ayidaan isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ilaahay ku asturo xilka wax walbeetaba abtiris bay leeyihiin ma shaqaynayaan waxaan abtiris lahayn ilmaha aabba lahayn looguma abtirin karo dadka yacni maaragtay mucaaradaya ama ka hor taagan waa xilliga iyo wakhtiga jira ee dadku kala dambayn iyo ixtiraam iyo karaamul ahaan jiray annaga oo ah beesha reer siyaad xuseen oo ku dooranayna nabadoonka guud jaamac faarax nuure waa nabadoonka guud ee beelweynta reer siyaad xuseen ma ahan qoys waxaan rabnaa inaan haddii ilaahay idmo sidaas beesha sade nolol qaadateen aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinaynaa beelweynta reer sade iyo ummadda islaamkaaba waxaan ka codsanaynaa annagu waa soo doorannay inaad nala soo dhowaysaan ood nala qadataan ugu ducaynaynaa wax badan baa nabadoonna aan loo ducayn baa dadka qarribay beesha sade oo aan faataxada loo marin asaga faataxada maraynaa waan u ducaynaynaa inuu kii dalka iyo dadkaba anfaco ilaahay ka dhigo faarax nuure markuu hadlahayo siduu u fiirsanahayo odhan jira intaasaan idhi loogama dambayn jirin lagaaga dambayn maayo haddana nabadoon guud baa tahay waxaan kuugu ducaynaynaa hawshaan maanta kuu keennay ilaahay inuu kugu asturo nabadoon jaamac nabadoon faarax nabadoon nuure weeye nabadoon guud waa nabadoon mareexaan waa nabadoon xuseen yuusuf waa nabadoon reer siyaad xuseen waa nabadoon guud weeye waxaan rabnaa inaad ugu shaqayso beesha sade waxaan rabnaa inaad ugu shaqayso dadka dariska nala ah oon beesha sade ahayn waxaan rabnaa inaad ugu shaqayso ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali weyn waa mas'uuliyad lagu dhiibay wax adag weeye ma aha wax sahlan ma annaguna waa kugu daaya kugu asturaan annaguna leenahay annaga waxaad noogu yeerteen jaamac baan doorannay nala ogaada oo nala doorta weeyo waxaad noogu yeerteen waa in la doorannay waxaanan inii sheegayaa nin istaahila inuu yahay baan inii sheegayaa beesha reer siyaad xuseen ma habaabin hadday mareexaan u yeertay oo xafladda ugu yeertay ma habaabin hadday nabadoon jaamac nabadoon faarax nabadoon nuure xubey ay caleemasaarna ma habaabin aanan u doorannay nin astaahila inuu yahay aabbihi nin astaahila inuu ahaa awowgi nin astaahila inuu ahaa aniga waan aqaanay faarax nuure xubey waan aqaanay nabadoonnadii sharciga ahaa oo xalaasha ahaa oo mareexaan ugu shaqaynayay magac mareexaan ee magac aan ku shaqayn jirin buu ahaa jifo idinku haddaad keenteen walaalayaal annaguna waa ajiibnay waa qaadannay nabadoon asana yuhidaya
dhaqan u leeyahay oo taariikhdiisa lagu mahmaaho kaloo jira allah u naxariistee nabadoon faarax nuure halhayskiisa wuxuu ahaa ilaah wana habaabin oo ducada u lahaa oo hidaha u lahaa nabadoonku maraxaan kaliya ma aha wuxuu u yahay Soomaali oo marka hore islaam buu u yahay ninkan nabadoon la yiraahdo waa la soo shaqeynay inta hadda uu golaha gurtiga fadhiyay waa u soo bognay waa nin ku shaqeynaya cadaalad waa nin ku shaqeynaya aabi teetalkii uu lahaa Cabdi Sugulle Guuleed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Galmudug iyo wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga Galmudug Mahad Xasan Maxamed ayaa sidan ka sheegay munaasabada waa nin dhalinyaro ah waa nin hal abuur leh been sheegi maayo waa deeqsi been sheegi maayo waa geesi anoo og markii aanu amniga cawda kala hore ka shaqaynaynay kaalintii muggal ahayd ee uu ka qaatay oo uu garab istaagay wasaaradda amniga Galmudug markaan ahayn nabadoon jaamac nabadoon faarax nabadoon nuure nabadoon xubay oo gabagabadii ka hadlay munaasabada lagu caleema saarayay ayaa sheegay in bulshada uu ugu shaqeyn doono cadaalad iyo sinaan waxaana uu ka codsaday inay garab istaagaan faataxadana in maraaxilkaas ilaahay inuu igu ilaaliyo aniguna waa dadaalayaa waxaana u shaqayn doonaa Soomaalinimo anigu meesha ugu yar aan ku shaqeeyana beesha siday noqon doontaa insha Allah waana ku shaqayn jiray waxaan ka codsanayaa in xilka la ii magacaabay la igula shaqeeyo baan in ka codsanayaa Ayala Cabdullaahi Jaamac Honkable TV Abadwa